halkan ceeb iyo faaxisho xooggan ayaa naga soo gaartay. niyuusyada caalamka wargeysyada kuwooda ugu afka dheer waxay falanqeynayaan oo rogayaan oo ceebeynayaan qaranka Soomaaliyeed. dhibaatadaas oo dhan waxaa noo soo jiiday gabadhan iyo dadka qaraabakiilka meesha ku geeyay. hadda waxaan idin soo wadaa kommentiyo yaab leh oo lagu jarjarayo Soomaaliya. wallaahi billaahi tallaahi damiir haddaad leedahay waa isdaldalaysaa waa ku yiri. labadan qof oo idin muuqdo kommentiyo ayay dhibteen, waxaana la kala yiraahdaa Crispinus Jama iyo Leonard Chepkoech. Crispinus Jama wuxuu leeyahay Smarta achieved a record state. si cajiib ah ayay u gaartay rekoorka, wax la yaab leh ku noqotay. bal meeshaan Leonard Chepkoech waxay leedahay she is a track record, my grandmother can run faster than her. waxay leedahay waddo fog ayay u soo gashay inay rekoord cajiib ah samayso, laakiin ayayday ayaa ka orod badan bay leedahay gabadhan waxaa la yiraahdaa Louise WM. waxay leedahay at least she represented dreams. waxay matashay riyay leedahay gabadhan. caawna kala war sida nolosha jiraayaday. Franklin wuxuu leeyahay she broke a record in her own way. wuu yaabay, aad u yaabay. wuxuu leeyahay iyadii samaysa iska jabisuu leeyahay, sababtoo ah rekoorkan wax hore u sameeyay lama arkin lamana maqlin. Rajael Hilton wuxuu leeyahay that's the price of nepotism and corruption in Somalia. she related to the Somali official who took her there. wuxuu yiri tani waa qiimaha qaraabakiilka iyo musuqmaasuqa Soomaaliya. waxay qaraabadu la tahay dad madax ah oo geeyay halkaas. foolxumadan feeri yaa u sheegay in qaraabakiil halka lagu geeyay. Bob Olondo wuxuu leeyahay how did she qualify? sidee ugu qalantay buu leeyahay tartankan. anyway I like her financial style. la yaabay ku noqotay qof noocaana in tartan caalami ah laga soo qayb geliyo, waliba dawlad uu matalo iyo qaran. wuxuu leeyahay si kastaba lugtii ay fintic ka siisay yaan ka helay buu leeyahay. muusikii wuxuu leeyahay straight into Guinness Book of World Record. si toosay buugga mucjisada lagu daabaco gashuu leeyahay ninkan waxaa la yiraahdaa dhukan waa malwa, aad uu noogu jijeesayaa. wuxuu yiri record just a record waa record uu leeyahay, waa kajan uu nagu kajamaya ninkan. Wonder Brown wuxuu leeyahay I hear she related to top government official. wuxuu leeyahay waxaan maqlay inay qaraabad dhow la tahay dadka ugu sarreeya madaxda Soomaaliya. sawirka ninkan uu qaatay fiiri iyo foolxumadan loo diiwaan galiyay. Krishna Mwangi wuxuu leeyahay please remember she was the best in her country, so let's laugh in a way that places score. xasuusnaadu leeyahay tani wax ugu fiicneed wadankeeda, sidaa darteeda waa inaan ku qosan la qosol Ilaahay raali ka yahay. bal meeshaan fiir foolxumadan lagu dhigaayo. ninkan wuxuu taagan yahay qosolka ku qoslin Ilaahay baa baraal nooga ah, nalooga caroon maayo leeyahay ninkan. inaba caadi maaha. Jonathan Siambe wuxuu leeyahay she went for the record and achieved it. congratulations. waxay u tagtay inay record samayso waana samaysay. ninkan waa nagu kajamaya, aad uu nagu kajamaya laftirkiisa. Soomaaliya intaana ku soo koobay kommentiyaasha aan soo ururiyay. aad u mahadsantiin sidaad u akhrisateen ama aad u dhageysateen.